السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوتو هذا أصحابته maanta muuqaalkan aan wado muuqaalada kale waa ka duwan yahay reaction waaye reactionkaas oo ku soo binayo iPhone 13 ka soo socdo iPhone 13 ka wali lama soo deyn oo release ka waqtigiisa bishaan la rajaynaa uu ka duwan yahay marka iPhone-ada kale marka waxa rabaa waxyaabo uu ka duwan yahay in aan isla aragno وإنه بلابا هذا حال صار بس تريلر كيسة ورجعي صار بس وإنتريس على صاري مركب تريلر كان أصلا داونينا iPhone 13 Pro Max display أيوة كبلابا شاشة شاشديس waa 120 Hz waaye OLED HDR10 Plus waaye cabirkan ilaa wuxuu tagaa 6.9 haduu wada 6.8 waata laakiin 6.9 ayuu geeyna platformka ugu beena platformka waa operating systemka waxa loo jeedaa mar hadaa maqashid iPhone operating systemkiisa waa iOS laakiin Samsung haduu ahaa operating systemkiisa waa Android marka wuxuu ka hadlaa qaybta platformka operating systemka marka operating system kiisa all new way dhamaan waa la soo cusboonaysiiyay iOS 15 waaye processorka CPU ga waxyaabo ugu muhiimsan oo telefoonka laga fiiriyo mar haddii technology ka hadlaysid computer aadam telefoon ahaado waxa ugu muhiimsan waa processorka oo CPU ga marka CPU giisa asan isla arkayna waxa A15 Bionic waaye CPU ga oo processorka waa next generation waaye 15 Bionic waaye charging kiisina position ugu dhaafay 150 waaye wax yar soo celina meeshas wuxuu ku jaajareysmaa 30 minutes 30 daqiiqo kaliya bas 30 daqiiqo ayuu ku jaajareysmaa Touch ID sulk farti faraha midka doontay adig fingerska waa Touch ID ga waxa laga dhigay marka under display Touch ID minaha iPhone ka hore ma la soo bandhigi jirin laakiin markaan waa la soo bandhigaa meesha calaamadii oo farta asaarleed oo lagu soo bandhigaa oo Touch ID ga marka waa display waa kan under waa marka shaashada korkeeda lagu soo bandhigaa sidaas uu waaga fiican yahay kuwa kale all day battery-giisa wax badan uu ku hayna minaha aad loo amaana battery-giisa camera better cameras waa camerooyinkiis aad u wanaagsan yihiin wax kala oo dheeraad ah portrait uu leeyahay meesha soo yar ku soo celina portrait video mode iyo sidoo kale astrophotography mode leedahay oo qaybta photography iska xataa loo adeegsan karaa portrait na video uu leeyahay colorada ku soo baxay colorska waa isla fiirinaynaa all new colors waa colorada dhamaan waa cusub yihiin marka meeqa color waay coloradiisu waxa waaye graphite sea blue iyo space orange iyo rose gold afartaas color ayuu ku soo baxaa the most powerful iPhone gaming immersive gaming experience uu leeyahay gaming easy waa ku sidoo kale enjoy 8K HDR content playback uu leeyahay 120 display hore ugu soo hadalnay 120 Hz aheyd laakiin wuxuu duubaa fiidiyoye 8K 4K waa laga gudbay 8K ayuu maraa all new iPhone
iPhone 13 Pro Max marka inta ku soo kooba waxa dhan displaygiisa waa 6.9 120 Hz oo OLED platformkiisa waa iOS 15 ama 15.1 memorygiisa 8GB RAM iyo 128GB ilaa iyo maskaxda laga hadla taas RAM-kiisa 8 waaye 128GB waaye sidoo kale maskaxdiisa ilaa ugu badnaan waxa ka helay 1TB 1GB waaye waxa u maleynaa computer inaa u baahnaanin 1GB daaweysatidba processorka hore u sheegnay waa A15 Bionic waaye chargingkiisa wireless only waa bas fiila ma laha chargerkiisa charger wireless clips ku isticmaali kartaa no port waaye good ma lahan oo fiila ku xiri kartid cameras waa upgrade ayaa lagu suubiyay ultra lens leedahay networkkiisa internetkiisa ugu dambeyn 5G waaye wifi waxa ku isticmaali kartaa 6E touch ID-ga under display ayaa laga dhigay waxa loo yeelay meesha sulka asaarleed uu ku soo muuqanay kan uu ka duwan yahay kuwa kale release kala soo teenaani 2021 coming soon gareeya si asxaab kale u gaarto ay futati ka xiiseenayaan lacagtiisa laakiin soo iska badan tahay share gareey aad ay u masantiin daawashada muuqaalkan